Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti waxaana wanaagsan. Waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin caafimaad qabtaan. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa buun yar oo aad u fudud. Maasha Allah, tabaaraka raxmaan. Halkan waxaa ku haystaa digsi, waxaa kusoo shubtay biyo, waxaa kusoo daray hayl, waxaa kusoo daray liin dhanaanta diirkeega, waxaa kusoo daray waxoogaa qorfo ah. Intaas baan xoogaa isku karinayaa. Xoogaa markay isla soo yara karaan, carafta iyo udgoonka uu kasoo baxo, kadib waa aan soo miiri doonaa insha Allah. Waxaana waan yara dayn doonaa in yar inta uu karaayo. Hadda waxaan soo diyaarsaday weelkii aan doonayay inaan ku sameeyo. Waxaan ku shubtay 2 malqacdood ama 2 qaado oo sokora, 1 qaado oo bun ah, iyo in yar walibana 1 qaado iyo in yar oo bun ah ama kafee ah. Kadib waxaan kusoo darsaday wax yar oo biyo ah. Intaa markaa isku soo daray, waxaan soo qaatay biitarkii ama kii lagu qaraacayay ee isdhex gelinayay bunka iyo sonkorta iyo biyaha. Sida quruxda badan leh ayuu soo sameynayaa ama uu soo qaraacmayaa ama uu soo shiidmayaa. Haddaba muhiimadu maxay tahay in markaa ku shubto biyaha hadday maqaacad ku samayso xoor ma samaynayo, yacni ma xumbaynayo, san oo kale uma samaysmayo. Marka waa inaad birta lagu qaraaco tan oo kale aad ku samaysato, ama maqaacada aad ugu qaraacdo qof wuxuu haysta gurigiisa u yaala. Xoogaa markaad isa soo dhex geliso ee aad si fiican u soo qaraacdo, kadib waxaad soo qaadanaysaa koob. Koobka waxaad ku shubanaysaa haaf caana, dina bunkii kafeegii iyo sonkortii iyo biyihii aad sida fiican isku soo qastay ayaa dabadeedna dusha kaga shubaysaa koobkii. Koobka markaad dusha kaga shubto, muhiimadu waxa weeye koobka in caanaha haaf caana baa kugu jira. waa inaanad ku samaynin in caanaha iyo ay isdhex galaan kafeega aad soo qaraacday. Haddii aad gunta hoose usii geliso way isdhex gelayaan. Marka waxaa la doonayaa in ay labadoodu kala sareeyaan oo aanay isdhex gelin oo caanihi aanay kasoo dul marin ama dusha sare aanay caanuhu soo marin. Sidaa daraadeed waxaad ku shubaysaa si aayar ah ayaa waxaad ku shubaysaa alaabtii aad isku soo qaraacday aad sida fiican isku soo dhex gelisay. Kadib waxaad samayn doontaa intaa markaad si fiican isku soo dhex geliso. Badanaa waan iska ognahay bunku waa qadhaadh markuu kaliya yahay. Markaa sokorta sababta aan ugu darayna waxa weeyaan in qadhaadhka badan aan ka yarayno. Kadib waynaga arkaynaa wax yar oo bunkii ah ayaan dusha kaga soo daadsaday. Maasha Allah, tabaaraka raxmaan. Sidaa ayuu nooga soo baxay bunkeennina.